gabadhan yar ee reer Afghanistan ayaa hadda soo gashay Pakistan iyadoo xamaalaysa boorsooyinka culus miisaankeeda. intii ay isku dayeysay inay ordo si ay uga cararto ilaalada xadka ayaa waxaa yimid gaari kale oo xamuul ah oo wada caruur badan oo reer Afghanistan oo sida boorsooyin. dhaqankan ma ahan mid cusub, laakiin dad badan ayaa rumaysan in arrintan ay hadda aad uga weyn tahay sidii hore. waxaan ugu qasbay inaan tan sameeyno saboolnimada awgeed. aabahay wuu xanuunsan yahay oo waxa wanaagsan in wax la kasbado intii waqtiga la lumin lahaa. waxaan la macaamilnaa alaab qaybiyaasha. markaan alaabta gaarsiino waxaan dukaanleyda ka qaadanaa warqadda iibka. markaan soo noqono ayaana la siiyaa lacagta. caruurtu waxay sidoo kale la soo noqdaan waxyaabo yaryar sida macmacaanka, sigaarka iyo maryo si ay u iibiyaan. waxaa si joogto ah u raadiya oo eryada ilaalada xadka Pakistan kuwaas oo ka walwala amnigooda oo dibna u celiya. laakiin caruurta caadi ahaan waxay ku soo noqdaan baabuurka xiga. caruurta Afghanistan ayaa ah dhibanayaashii ugu naxdinta badnaa 10 sano oo colaad ah oo ka jiray dalkooda. waxay fahansan yihiin halista ka imaan karta sharci darrada ka talaabida xuduudda iyo ku dhuumashada baabuurta. iyagoo sidaas sameynaya qaarkood ayaa horey ugu dhaawacmay, laakiin weli waxay dareemayaan inay mudan tahay in naftooda ay halis geliyaan halkii ay gaajo ugu dhiman lahaayeen. caruurtan badankood waxay ka yar yihiin 15. kuwa yaryar ayaa ugu fiican maxaa yeelay waxay si sahlan u geli karaan baabuurta waaweyn. waxaana jira shilal badan oo hore. weligay ma dhaawacmin, laakiin gabar ayaa hore ugu dhimatay maxaa yeelay waxay ku fadhiday matoorka. weligay uma dhowaado matoorka, mar walba waxaan fadhiistaa gadaasha dambe ayuu yiri. shaqo la'aanta Afghanistan aad ayay u sii kordhaysaa, halka Pakistan si ka duwan sidii hore waxay si adag u xakameynaysaa xadkeeda. dadka waaweyn waxay kaliya ku gudbi karaan dukumentiyada habboon ee ganacsiga. marka caruurtan ayaa loo adeegsan karaa inay wax tahriibiyaan iyagoo aan marin goobaha baaritaanka. UNHCR ayaa sheegtay in adeegsiga khaldan ee caruurta uu yahay wax laga naxo. muuqaaladan waa inayna dareensiiyaan mustaqbalka Afghanistan, caruurta Afghanistan iyo dhalinyarada Afghanistan, iyo in wax walba ay hadda halis ku jiraan. kani waa baaq ku socda qof walba, ma aha oo kaliya beesha caalamka, laakiin sidoo kale dadka daawanaya muuqaaladan. waa waqtigii la taageeri lahaa dadkan quustay, ma ahan in laga jeesto Afghanistan. celcelis ahaan caruurtan waxay safarkii ku helaan qiyaastii $10, laakiin waxaa jira maalmo ay waardiyayaashu ay alaabtooda kala wareegaan iyagoo u adkaysanaya dhammaan dhibkii iyo dhaawacii ka soo gaaray. ma haystaan ikhtiyaar kale oo aan ahayn inay gacantooda oo maran ay laabtaan.